ilaahay baa saa igaga sarreeya waan mar walba ku xamdiyaa inuu hawshaa iga saaray $1 waa suuqa hoosan jooga xaafadan waa xeraawr $1 oo bas ku raacmaan haysa aan ka soo lugay xaafadii maxay noqonaysaa inaad beer u sheegto oo tiraahdo mushaharkii maan qaada way dhacday dhowr jeer inaan xitaa xaaskaygiisa ku dhici gaadhin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء دواء ليال channel كمان شيء maanta insha Allah muuqaalkeen wuxuu ku saabsanaan doonaa dhibaatooyinka uu leeyahay barnaamijka One Exbit sideen gabigeenuba wada ogsoonnahay inuu ka dhalagsannahay barnaamijkaasi waxa uu naafeeyey dhaqaalaha in badan oo ka mid ah dhalinyarteena muuqaalkeenana waxaan kusoo qaadan doonaa mid ka mid ah dhalinyartaas oo inooga warrami doona waxyaabihii uu kala kulmay intii uu isticmaalayay barnaamijka iyo khasaarihii ka soo gaadhay intaanan mowduuca u gudagelin barnaamijkan sidiisaba horta waa barnaamij khamaara waanan wada ogsoonnahay diinteen waxay ka qabto khamaarka iyo inuu xaaraan yahay haddaba anu maanta ugumaan talagelin war badan idinka sheego barnaamijkan iyo faahfaahintiisa ee waxaan ugu talagalin inaad dhegaysataan cabdi caawiye iyo tijaabadiisii ku saabsanayd barnaamijka One Exbit daawasho wacan maalin maalmaha ka mid a ayaaba waxaan u tegay inaan isku asxaabnahay iyadoo fasax la iskaga jiro markii aan fasaxii ugu tegay ninkii aanu saaxiibka ahayn wayn badan wada joognay ayuu igu yidhi ninkaan saaxiibka ahayn iyo lacag ma kuu diraa waan la yaabay manaa weydiin lacag waxaan ku idhi dabcan haa qof walba lacagta u jecel yahay qof aan lacag jeclayn ma jiro haa baan ku idhi ninkii lacag badan buu ii diray waxaan ku idhi sideed ku keentay wuxuu igu yidhi application mobilkan ku jira ayaan ku shubay lacagtan wax yaroo lacaga deedna waxaan ka saaray $200 waxay la noqotay wax qariiba waxaan ku idhi saaxiib balitus wuu i tusay sida loo ciyaaro sida loo sameeyo sida looga saaro darow maxay waxaa la yidhahdaa ba igu yidhi One Exbit wallaahi magaceega markaan iminka afkayga aan kusoo qaadayo meel bay damqanaysaa waayey baan ku idhi hawshii sidii baan waday ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wamaa asaaba min musiibatin ilaa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir dhibaatana idima timaada ilaa gacmihiina aad ku doonataan weliba ilaahayna in badan buu idinka dhaafaya in badanna wuu iga dhaafay imise qof baa asxaabtayda kamid ah noloshoodii ku waayey isagoo ciyaarayo waqti aan maqnaa yani aan la soo hadlay inaan saaxiib nahay markaasaan ku dhigo ninkii reer berbere hebel baan u baahnaa anigoo markaa u sheegay inaan wax kale u sheego wuxuu yidhi ninkii wuu dhintay stroke baa kusoo booday uu dhintay ninkii isagoo baashii ciyaaraya yani wuxuu ku shubayna waxay ahayd lacagu guri iyo wax noocaasa ku dhisay waxyaabaha cajiibkay baashaasi ay cajiibkaa tahay horta kow waxay ku baraysaa akhlaaqiyaad aanad adigu lahayn waxaa ka mid a beenta waxaa ka mid a inaad qof aanad ku dhiirateen aanad wax kaad yani qof aanad ku dhiirateen aad maxaan ku dhahdaa wax weydiiso oo tiraahdo hebelow lacagii soo dir waxaa laga yaabaa waxyaaba aad ka xishoon jirtay oo ah inaad qof wax weydiisato inaad si easy aad wax weydiisato dhakhtarkii markaan ka shaqaynaya dhakhtarka maamulanka ahaa waxaa la odhanayay daa'if dhakhtarkii markaan ka shaqaynayay bahashiina aan isticmaalay waxaan ka helay lacagayow laakiin alxamdulilah ilaahay wuxuu igu guuleeyey lacagaha xitaa sheekadayda dambe oo sheeko dheera laakiin dadkaan doonaya dee sidii aan u qoray oo kale dhowrkii beji inaynu usoo gaabino aynaan aada u badin waxyaabo ilaahay iga fogeeya waxaa ka mid a $1 oo ka mid a inaan xaafadayda geliyo lianno markaan ogaaday bahashaasi inay khatar tahay ismala lahayn intii dambe oo dhan waxaad is odhanaysaa oo aad ku fikiraysaa lacagtay kaa cuntay dib uga soo saar dhakhtarkii markaan ka shaqaynayay waxay igu kaliftay inaan shaqada hore uga baxo si aan iyadii waqti ugu helo inaad cudurdaar sheegato waan baxaa 11 iska tagaa asxaabtii baanu tagaa nimankii haye waan la ciyaaraa maxay kan kale geli dhibaatooyinka isoo maray waxaa ka mid ahaa ninkaa doctor Saciid baa maalin wuxuu ii diray $100 in aad u fiican buu ahaa boqolkii markuu ii diray ayaabaan isiri $5 ku ciyaar ciidina way iska soo dhaweyd 95 kalena kuwa dharka caruurta baa kaaga filaaday u dir
$5 baan ku shubay waa waxyaabahan ku ogaaday bahashu waa addictiga qaadka ka daran sigaarka ka daran khamriga ka daran xashiishada wax kastoo addicti lagu noqdo way ka darantay bahashaasi waxyaabaha kale waad isqaban kartaa qaadka rag baa intay cunaan haddana maalmad ka seexda iyada markay lacagi soo dhacdo laasim waxa tahay waa waxyaabahan ku ogaaday nin baa igu yidhi maan aamini jirin wallaahi bahashaa sixir baa ku jira maan aamini jirin lacagtii baan ku shubay $5 $100 waxaan kaga kacay muddo ka yar 30 daqiiqo hawshii waxay socotaba maalinba sidii shaqadii baan sagsaa geliyey waxaan arkay shaqadii dhakhtarnimada sagsaa geliyey waxaan arkay inaan maamulkii dhakhtarka anu markaa dhakhtar ahaan wax badan xirfad badan yani qaybta maamulkan qaabilsanaanu shaqaalaha maamulkooda waxyaabahaasaan qaabilsana waxay noqotay inaan shaqadii sagsaa geliyo waayo mar 11ka mar 12ka ka baxaa marba wax dabadeedna dhakhtarkii 11ka 12kan baxaa gelinka dambe maba soo noqdaba waayo saacadihiisu waxay ahayd deedna sagsaag badan oo geliyey ninkaas ciid wuxuu ahaa nin aad u dulqaad badan weligii ma odhanin maxaad u tagtay maxaad u baxday yani waa dadka ugu wanaagsan ee la soo shaqeeyay buu ka mid ahaa markii dambe dee landamiir baad yeelanaysaa waxaan isiri baashii ma wada kartid shaqadii totally waa iska risaan gareeyay anigaa iskaga tegey aniga kuri siciidow habeenkii ka mid ah iyo nin aabihiyo alla hadaaye agaasimaha tacliinta sare ahaa oo isna nin fiican ahaa ayaan habeennimadii la hadlay waxaan ku odhanaya shaqadii ma wadi karaye waan isaga tegaya lianno waan arkayaa inay waxay jiidanayaan waxaasina waa addict waa la qabsi dabadeedna hawshii markay aduu aan sidii kaga tegey bahashii baan iska sii watay nin ka mid dadka ugu wanaagsan aan soo wada dhaqannay asxaabtana aanu nahay in la yidhaahdo faysal cali xuseen oo xildhibaanadii ka mid ahaa waddani bergi dhaweed waayey imikana sugaha waddaniya oo kanada jooga ayaa igu yidhi niyo isbeddel baa kaa muuqda automatically baan isu beddelay jirkayga sidaan ahaan jiray wax walba wuxuu yidhi niyo isbeddel weyn baa kaa muuqda waxaan ku idhi maxaa kugu dhow soo siyaaday waxaan ku idhi waxba igumay soo siyaadin niyo wax dhibaato ima haystaan adigu ii waraystay lacag buu ii soo diray lacagtaasi waxay ahayd $100 maalintaa abal waayaho sidii leeg ilaa kama daynaysidoo waa waxanaa ku wada lacagtii baan ku shubay bahalkii waxaad is odhanaysaa marka koowaad waxyaabaha cajiibka ah xalay toole aan kaa yar dhex gale dadyoga iila soo hadlay oo dhammi waxay igu lahaayeen niyo qisadaa ku soo martay waa taan iminka dhex taaganay nin baa igu yidhi jagaan soo iibinay ninaan walaalnay uu lahaa jagadii baan is yidhi qaybtiisiisii anigoo qaybtiisiisin 48,000 baan kaga soo baxay 18 cisho waa $48,000 bahashaa geliyey dadkeenu mushkuladaha waddanka haysta meelo kale ka eegayaan laakiin kow waxa ka ah qaadka ninku wuxuu ku cuni $10 ama $20 deedna wuu iskaga kici laakiin ummaddeenu tay ku halaagantay ee halaagii u dambeeyey ku wada waa wanaag isbad cidna ma oga walaa sheekh baan ka hadlay walaa cid kale wax ka hadlaa way yiri meel baad soo gelaysaa inta qofeed weydiisa inta meheradooda kacday haddaad weydiiso hargeysa 30% ama 40 waxa kiciyey waa wanaag isbad waa addict imikaad wax kalena ma odhanaysid lacagtaadii ka soo cesho niyo dib ha u ciyaarin oo lacagtaadii ka soo cesho wallaahi billaahi tullaahi lacag ka hel intaan dib u galay way yarayd sidii baan ku waday waxaan u wareegay alxamdulilah dhakhtarka loo la yidhahdo maniila oo ka mid ah kuwa maqaarka ugu fiican hargeysa dhakhtarka waxaa lahaa nin aad u boqor oo la yidhahdo cabdiraxmaan sagsag dhakhtarkii baan waday dhakhtarku wuu cusbaa wuxuu yidhi ila kici dhakhtarka waayo marketinga ku fiican ninka macalinkiina inta badan marketinga uu iskaga fiican yahay waayo dadkii baa wada garanaya waan la waday waan la kiciyey si wanaagsan baan ula waday kor baan ula soo qaaday markaan in badan la waday ilaa hawshiina way haysataa ayaan maalmii dambe isla istaagii oo kala galay laftiisii ila hadlaa markaas ninkaasi markaa ninkaa waan israaci jirnay anoo fooraro mobilka ku fooraro arkaa maxaa kugu dhacay maxaa sidan mar walba waxaan ku dhadaa waxbaa niyo waxaan ku weydiiyey waxaan aad qorta ma waxbaad qorta mise filmaan baad daawata
kaasaan ku dhahdaa filimka hindigaan iska daawanayay intaad ka qaada markaaba waxyaaba cajiibka ka tahay waxaa ka mid ah $3,000 buu ninkan ku ag fadhiyaa uu wadaa ma doonayo inuu ku tuso haddii aad ku tiraahdo waa niyo 3,000 ka saar wax badan bay kuu taraysaa wada xanaaqayaaba wuxuu isleeyahay 30,000 ka dhig 30ka ha 3,000 ku jira $30,000 ka dhig 30,000 300,000 ka dhig baashu waa saas wuxuu qofku miyirsanayaa un marka halka doolar ugu dambeeya uu ka dhaco shaqadiisii dib baan ku waday maniila deedna waxaan wadaba shaqadiisii dib baan sagsaag ku bilaabay inankii badan bay la hadlaynayo shaqada waad soo kicisay si wanaagsan bay meesha u socotaa adigii baa dib u noqday maxaa ku helay maxaa ku haysta in la jiidayaan ayaa aad iyo aad oo addictia ninkii odayga ahaa waxaan la shaqeeyaba maalmihii dambe waa soo istaagay wuxuu yiri uu ila soo hadlay wuxuu yiri shaqadaadii labada gelin ba caadi ma u qabsan karaysaa mise gelin baan kaaga dhigaa waxaan ku gelin iga dhig gelin baa la iga dhigay ها اللي بهاش بقى يدرني مشاهر كي يجينا العق وحبي كمشارين نأذ في عن بوها ما أنتي تبغى وحيد دري العق لما هي مركها وحيد دري بيلكي حافظة ما قرنا يقول مست مركها وحيد دري هذا بدنا وحن كو قادنا يعني كوميشن بدنا نحن كله مشاهر $7 $100 بيدري وحن السري niyo markaa nin baan inaan jigjigay isu raacnaan doonayni niyo jigjigaad iska yar tagtido bal hawlaha aad soo yaragaatid baasaboorriya xaasa soo baxay markaa aduu waxyaaba noocaas baasaboorro aduu waddamada jaarka ah ayaan is idhi niyow aad baasaboorrada iyo waxaas hawshaa yaroo hawl yaroo macaanoo gaf iyo gaf waa dhowrkun baa laga helayaa aad soo ogaatide sii samaysa lacag $300 xaafadda u dir $50 bahasha ku samee $10 oo horreeyaan ku shubay waxaan ka badnayn markay 9kii habeenimo maraysay ilaahay baa saa igaga sarreeya waan mar walba ku xamdiyaa inuu hawshaa iga saaray $1 waa suuqa hoosan jooga xaafadan waa xiraawr $1 oo bas ku raacmaan haysa aan ka soo lugay xaafadii maxay noqonaysaa inaad beer u sheegto oo tiraahdo mushaharkii maan qaada way dhacday dhowr jeer inaan xitaa xaaskaygiisa ku dhici gaadhin waayo waad shaqaysaa maalin walbana waad tagtaa biil lama jeedayaal caqli wax suuragal ma ah ciyaal baa ku sugaya wax walbaa ku sugaya maalin dambe ayaa commission yar baa aduu ii soo dhacay niman aan wax ka yar iibiyey alaabooyin $150 baan ka helay waxay ahaayeen kawaadhidii dabargoodee 3B-ga wax la odhan jiray 3B bay ahaayeen waa wax laga isticmaalay Ethiopia kawaradooda la doonayay daboolka deedna nin geerish haysto beri hore aqaani ayaan garanay kii baan ka soo iibiyey mahali adoo 4 xabaan soo helay lacag fiican baan ka helay ilaa $200 ninkii la socday baan konton siiyey oo ilaahay hawshay la yar wado bahala meesha ka soo saaray $150 baan garaacay ku yaroon dhalay markaa ayaaba yar hargab hay waxaan is idhi cuntadana u yardiid waxaan is idhi waxaad u sii qaadaa dawadii ama teedka u sii qaad hay meel yar baan iska fadhiistay bun baan iska dalbaday alaabtii ay soo hormartay alaabtan mar walba waad saaraysaa waxaad odhanaysaa iminka ay igu dambayso mar dhow sidaad lacag kuu soo gasho waad soo download waxay taallaa faylka downloadkii taallaa waad soo dejinaysaa dhag way ku jirtaaba biinkii oo dhagdhagoo maxay oo waxaasoo kaasoo meeshii waxaan ka imaanay dawadiisidii hadal iyo dhammaan oo kiyaraan ku sugay kiyaraan xaafadiigu sugay inta aad soo socoto qalbigaad ka ooyeysaa yani 2 sano noloshaa soo maray qof xitaa xaaskayga way la dareemi jirtay iyo way iga dareemaysay inaan maxaa kugu dhacay maxaa waaye iyada qofkaad isugu badantiin waa qofkaad gurigooda joogtaan samirna inta bini aadmin loo samreeyay samirta waayo qof intaa kugu samreeyay adigoo shaqaynaya haddana bilaa biil ma jiro markii sheekadu halkaa maraysay waxa kale ku jirta inaad 40 cisho khuruujaad u baxday khuruujku wuxuu ka dambeeyay taa horta aniga intaan khuruujka bixin waxa soo baxday hawshii baasaboorrada
si fiican baan ugu waday dhalinyartii kolley qaar badan halka way ka daawanayaan aan hawshii ka dhameeyey baasaboorradii 4,500 ayaa loogu sameeyey calaa qof qaar 4,000 dadka qaar baasaboorradii uma samayn mid ka mid a caqabadu ka dhacday aanoo habeen iska habiyo iska fadhiyo lacag fiicanay soo galaysa deetan baasaboorrada ayuun baan bal idamka ilaahay nin aan saaxiibnay baa aroos iyo waxaa arooskii baan ka shaqayn waa la iska yeerdaan dhalinyartii baa iska meel iska wada fadhiisato waan u tegey qaar iska soo fadhiiso qaar ma fadhiisanay magaas ugu qaar iska soo yar fadhiiso iska fadhiistay waxaan isiruun 4,000 iyo 500 $20 kaga yar eeg bahashi ila waa wax ku dhufanaya waan ku shubay wadun 50 20 30 maxay degdeg degdeg $750 iyadii bahashi ku jiraan ayaan ka kacay ilaa qofkii ku shubtay tii baasaboor waa tii qofkan baasaboorka lahaa qofkiina wuu kaa sugayaa baasaboorkii inaad isku ceebowdaanna waad ka baqanaysaa in yar kadib ayaa qaar yararoo kale oo beri macallin aan waxa ayaa hawsha soo maqlay inaan baasaboorrada waxaa degdeg aan ku dhammaynayo muddo yaro dee waad iska garanaysaa baasaboor maxay waad garanaysaa dee waddankeena waa lagu wada sameeyaa inta badan qofba si uu sameeyaba waxyaabaha iska dowlad la-aantu macnaha yani dowlad la-aanta ayaanan odhanina yani adayga dowladda iyo ruuliska weli aynaan xadidin bay ka mid tahay inuu qof baasaboor iskaga dhex sameeyo hargeysa laakiin ka somaliland maaha yani kuwa wadamadaha kale kuwii yaraaba igu soo dhiiray waxay yidhahdeen kuwa yar 14 cishe aad ugu dhamaysay baan doonayna anaguna baasaboorka noogu soo dhamayso 3,500 bay keeneen inta kale naga daabay ku yidhahdaa ma jeebkaaga ka bixi macallin tii way sugaysaa tanna waa soo dhacday waxaan isiri 700 ka horta tii ka hadhay kuwii waxoogii ugu buuxi laa xawla walaa quwata illaa billah intiina way wada afuuftay waad ku shubtay waan ku shubay 750 maxaa taagan 3,500 adigu waday lacagtii waxay isla gaadhay lacag ku dhow $16,000 intii isticmaalaysay intaan isticmaalaya dadku weliba aanan lahayn dee dadka inaan wax ugu qabtaan doonayay beerkaan ka ooyey yani cid kuu garaabaysaa ma jirto qof aad fahansiin kartaana ma jirto markaan iminka soo dhigay maqaalka dadka isoo garaacay way ka badan yihiin haddaanan yaraynin hadda mobilkayga haddaan soo qaado 300 qof ilaa xalay markii dambe waan iska daayay qof walbaaba wuxuu odhanayaa miyow ma 16,000 maxay tahay 16,000 waa $80,000 baa iga maqan waan musallafay waan kacay mid wuxuu ku odhanayaa lacagtaydii jaamacadda dhan ee laygu soo diriyay anoo turki jooga ayaan cunay dhibaatooyinka ugu badan meelahay dhibaatooyinka ba-an ku sii haysaa waa koonfurta ama maxaan ku dhahday Soomaaliya waddanka jaarkeena waa meelahay ugu badantay dadka u badan iga soo garaaceen xagga lafteeda dadku way qarsanayaan laakiin bahashaasi dhibaatada ay ku haysaa maalintii baan in ilaahay ha barakeeye jab walba iyo buur walba igala baxay waan walaalanay iyo hooyadayo qofka ugu wanaagsan dunida ah ayaan arrinkii la wadaagay anagaba adigu iyaga hawshii maareeyey 16,000 si ay ku maareeyeenba waxaan go'aansaday inaan waxa farax ka qaado waxaan ku dhiyay khuruuj baa iska baxay bay yidhahdeen dadkana annaga waxooga u celinayna dadkii waxooga loo celiyay aan khuruujkii baan baxay aan ku dhaafay waxa jirtay habla aan ku wada shaqayn jirnay isla dhakhtarka laftooda oo hawshaa ku jiray baasaboorada iyagana tooda ku jirtay tan lacagta ها يعني dadkii haddana way weydiin jiray iyagoo lacagtii eeg markaad marka hore akhlaaqiyan aad dhisnayd ee diiniyan dhisnayd ee qof toosanaad iska ahayd qof walbaaba ma aaminayo waxaan kugu dhacay iyagoo lacagtoodii ay maqan tahay oo baasaboorkii aan u waayey oo hawshii oon saa ula meeraystay ila wad la meeraysanaysaa maalin walba waxaad cunaysaa ciyaaro wixii kale cunaysaa haddana dadkaasi way igu dhiiran waayeen inay qabsadaan waayo waxay ogaayeen macalinimada etigiska yani wanaagga naga dhexeeyey yani inaan weligeyba qof iska
laysma ammaanay qof iska toosanaan ahaa wax dhibaatiina may kala gaadhin inta badan qof iska yara adag uu jira maalintii baan khuruuj baxay haddaba waxaa laga baxayay waa kulankan islaamka kulankiisii imaka soo socda wax yar baa inooga hadhay waa bisha 9aad 3deedaan maraynaya wax noocaas kulankii baan tegey halkii baan 40 cisho ka baxay xarshin baan tegey waan nafis wax walba qabow habi waxaan idhaahdaa 40 cisho waa 40kii noloshayda ugu qaboobaa xitaa intaana waxaan ku jirinba ayaabaan khuruujka ku soo arkay waa dad isjecel haddii xabad roodhiya la wada helo roob baan helay halkaa waxaan ka teg gaadhay ma la yidhahda daaskeeyo meel ayaan ku dhawaaday xarshin baa 100 kilomitir saa loo dhaafaya yani waa almost 300 kilomitir marka hargeysa laga qaadaday way ku dhawaanaysaa halkii reerkaygii habi wax walba iyaga lacagta usoo dhacaysa ama biilka ay helayaan ama wuxuu adu waxba ma waayaanba alxamdulilah ilaaha baa waxa watee markii aan soo noqday anigoo habiyo dadkii oo jirkaygii isbedelay oo soo nafisay oo habi soo noqday ma soo noqday hargeysaan imi in yar waxoogaa markaan joogay ayaan isiri day shaqaad u baahantay soo ma waxaan la hadlay qofkii ugu wanaagsanaa noloshayda markaan ka imaado hooyada iyo qofkii ugu wanaagsanaa noloshayda cabdi yuusuf aar maamulaha shirkadda Sagaljad waxaan ku odhin yow shaqaan u baahanahay hadal bayga mu geline okay buu igu yidhi markaad khuruujka ka soo waa markaa khuruujka ka soo baxday okay buu igu yidhi waay isagu intaa ka hor isaga aqoon iska daa wax kale oo waxaa jira dadyo abaalku u leh kolley qixii ka hor annagoo wax allaale wax dabka lanoo saaro la waayey waayo meelaad wax ka iibsataa ma jirta lacag way jirtay sayla meelayla ayaa hooyadii baa dukaan yar ku haysatay waa qisooyinkan hooyadii ayay hooyaday u tagtay waxaa ku tiri ilaayo carruurtii ilma caawiye aabahoodna daraad buu dhintay aabahay markaa wuxuu ku dhintay dagaalka daraad buu aabahood dhintay wax hal shay oo wax loo saaraana ma jirto cuntada waa la kala qarsanayaa waxay ku tiri war cabdow halkaa furo 3 haaf uga soo saar hooyaday waxay ku tiraahdaa 3 haaf waxay la mid ahaayeen qof noloshiina dhan badbaadiyay horta ninka abaalka isagu ii galay xaafadiisu noo galeen isla xaaskayguna waxay ka shaqaysaa isla Sagaljad anoon xitaa marmar aanan camal hayno u dhaxaysay xilliyada dhakhtarka isaga lacag ii soo diray waan baxay waxaan ku uri waay haye waxaan ku yar noqonayaa meelihii aan soo maray khuruujka haye wiiga aqbalay markaa soo noqda hayno hata waan bilaabaya okay buu yidhi waan baxay dadkii aan soo maray oo dhan baan soo wada macaslaamiyey waxoogaa lacag yaroon haystay baan sarriftay oo ninkaa Faysal la yidhaha aan kuu sheegaya xildhibaanka wadani sugaha ana wadani ahaana reer Canada ayaa ii soo diray lacag khuruujkana isagaa ii soo diray ilaahay yaa barakeeyay waa nin inta qof wanaagsan dabadeedna markii aan tegey meeshii ayaad markii aan baxayay ninkaan walaalana Jimcaale la yidhaahna caawiye spare parts ninka iskalana lacag yar kulisiisay aad waan tegey lacagtii waan sarifay dadkii tuulooyinka dee waa dad soo wada wanaajiyay dhowr iyo 10 tuulo aad ilaa astaghfirullah 8 tuulo meelahaas inta kale aan sidee u soo maray mooyaan on markii hore marnay lacagtii dadadooda abaalka ii soo galay waa birtu marka dollar bedesho lacag badan ayaan wax yarsiiyay odayaashii waaweynaa qaadkan kale waan iska soo noqday anoo habiya ayaa maghrib baan tukaday deedna armeekaan tegey mid aanu xarshin isku barannay unba arbeekadii isagoo dhex marayaan arkaalay baan ku uri war walal waxaad ii soo iibsaa muus waa niyo muus kuwa ku yariyay meesha meel baan kaaga doonay wiis doonay markaas waan ku uri lacagtii unbii soo celiyay hor lacagtii ma lacagtii maxaa helay ar waxa ka baxo goorma tagaysaa berri 100 baan kuu diraya hadda waa $100 waa nin xarshin jooga wala ajabay arrinkii wala yaabay marka isagu deegaanka xarshineed sidaan filayo isagu deegaanku ma ahayn laakiin dad yawan gawaadhida iyo waxyaabaha iyo
aduu waxaa kaxeeyo waan la yaabay waxaan ku uri niyow marka waa isagu wuxuu ka tirsanaa qolooyinkan markan qaadka keenta dabadeedna harta sheekha inuu badnaa baan malaynaya maybe inuu halkaa u badnaa ayaaba waan la yaabay waxaan ku uri maxaa boqol ku yahay wuxuu igu yidhi miyaanad aqoonin wanaag asbedka kelmad kale wallahi ma oran lacagta waxa lagugu diray ila mushaax baa lagu isticmaalaa dee Ethiopia ma isticmaali kartid saad waxaan ku uri application cusub baa soo baxay haye si aad u wareejiso maba waayaysidba lacagta ha dib baan uga yar fadhiistay waxaa naga daaniyo balaayaha ku dhacday sidaa ku daa waan waay waan la yaraadlay ninka boqolkii waan iska soo qaatayo dee waan garanaya boqolkii inayna hagaagsanayni adu dad baaban adu waxyaabo aan aniga naftayda ahayn baan ku isticmaalay waxyaabihii oo dad baan siiyey adu waxyaaba saas waan iska yimi waxaa jiray waxaan kusoo noqday 9 jad baan shaqadii ka bilaabay si fiican baan isaga waday 9 jad horta waan kuu soo sheeka dhaafay waxaan soo sheeka dhaafay intii aan markii khuruujkan ka soo baxday ee 9 jad bilaabay maalin maalmaha ka mid ah anigoo si fiican shaqadaydu wataan nidhis aragnay wuxuu igu yidhi niyow berigii dadyowgii lacagta dee waxaan aad ay iga xumaysay qof ka mid a ayuu ahaa laakiin isagoo iloobay 1200 meelahaas lacagaa buu igu lahaa wuxuu yidhi lacagtii baan u baahanay weliba emergency waa emergency ma noqonaysa hagbad yar baaban isleeyahay isku yar beeg waxe iyo way wallahi beri shaqadan kugu imanaya waa beri dhaweyd ma isii fogeyn baashii laakiin dib uguma noqon wuxuu yidhi dikra shaqadan kugu imanaya shaqada in lagugu yimaado qof lacag leh shaqadii kugu yimaado oo isku dhex qabsataan ama askar uu ku keeno waa waxyaabaha aadka u khatarta u marka ay tamyo ka go'naa markaa shirkadoo kale oo dee dhilay waa kuwan iska xuutiyiintii iyo meesha wax wada xidhan dee adduunkii waa kan xidhan bahala yar shopping bag la yidhahdo ka go'an shirkadda lacagteedii baan hayay maxay ku soo dhacay tii ilaa ku dhacday waan si $5 ugu samey aduu lacagtii afuuftay bahash wixii sidii haddana ila lacagtii waa dad customers ba sugaya ku samee weliba customerska sugayay customerska ugu wanaagsan bay ahaayeen meel la yidhahdo taqaanaa furra brand kulli qaari ay aad u garanaysan baa laga yaabaa furre brand nin kale oo la yidhahdo Hargeysa baby center waxyaabaad yacni dad intii gobtay goba muddo ayaan ku lahaa sidaas bahashu waxyaabay ku baraysa beenta ka mid ah waniga kule yacni nin ingiriisa wuxuu yidhi isagoo af jalqinta dadka bariyo ay soo nafas soo daad soo ay soo inawaan waxay ahayd carab jalqinta lagu baranayo waxay ahayd wuxuu yidhi intaa miishaar arkayay weligii maan adag miishaar la mida miishaartan ku arkay waa arso waa isla tabtii weligii ma arag application ka xun intaan application soo arkay dad raggii messengerka la soo bilaabay baan ahaa technology-da weligood la soo korayay Hargeysa waxaan soo degnay 19 bishii 7 ina garow meel la yidhaha dhabarkiisaan soo degnay farmasiga dir yani intaa Hargeysa markaad joogtay dee wax walba waad uga warranto magaalada kusoo kordhaa hawshii sidii shoobaagyadii hawshoodii haddana waxay noqotay lacagtii shoobaagyada si aan u helo dadiyo waxa jira daynaa siiyey anigoo kale abta aawi ahaan ilaa waxaa tay marketing waxay noqotay inaad ku dhiirato intaad baashii wixii ka samaysay ilaa si kale ma jirtee cid kale inaad ku ceebowdo ma doonayso ceebad ka cararaysa laakiin waxaa la yidhi adigoo god ku cararaya god ku dhacdaa waxaan islahaa anigu markaa hawsha saa u dambe bas dadka waxooga u celi kana wixiisa u celi nimanka showbaagooda si hawsha saa ku dhamaato laakiin showbaagii baa meeshii taagan waxaan ku idhi deedna dad iyaga dayntaan siinayay qaar ka mid ah oo aniga qaarkood kaashii kugu dhiibayaan ayaan isirniyow intaad ku sii ceeboobleed kaashkan ku shub bahasha deedna geli mar labaad ها سيادة دتك العكتو دي سيسو
way cuntayntii way cuntay yacni dhibaatooyinka bahashaasi labadaa sannadood iga soo maray waxaan isleeyahay waa labadii sane noloshayda ugu adkaa waray xalay markaan soo dhigay bahasha dad badan baa 95% positive feedback wallahi waad ku dhiiratay wallahi ni hawl fiican inaad ku dhiirato ummadda aad u soo wallahi qof walba qof kasto qarsanayo soo wada baxay waa laga yaabaa hal qof iyo laba qof iyo de walaalada qaar kamid ah inay mar dhow idarkaynay oo kale waa laga mid ah waxa uu yiraahdo maxaad wax soo qortay ka saar baalka maxaad soo qoraysaa soo ceebaynaysaa waxaan ku wari ceeb maaha laakiin fa'tabiruu ya ulil albaab ilaahay wuxuu yiri war ku cibro qaata war taayib soo dhacday ku cibro qaata waxaan kaaga soo booday heart failure wadnahayga waxaan tagay maxamed xasan inta baasha ku dhex jiray habeen baan u tagay wuxuu igu yiri dhiigkarku wuxuu saameeyay wadnahaaguna waa adkaaday wadnu waa jilaa waxaa la yidhahdaa markuu dhiigga qaadayo waa laba dhawaaq u sameeyaa lub iyo dhub markuu dhiigga tuuraya iyo markuu qaadanayo wuxuu igu yiri dhiig tuuridaas oo kale yani wadnahaaga uu adkaaday haadhi buu noqday waan garanayay waxa haadhka ka dhigay markii baa dawooyin laga qoray ma dawaa wax kuu taraysa balaayo kale kugu socotay dhibaatooyinka ay soo maray horta kuwaas u badnaa laakiin mar walba waxaan alxamdulilah idhaahdaa ilaahay hal mar inaan xitaa magacayga ka xanaaqo isoo gaarsiiyey waxaan tagay deedna markaska fadhiyaa nin baa wuxuu igu yidhi iyo qalbigaad ka ooyeysaay maxaa kugu dhacay way arkay yani sidaan ilaahay u baryayaan u forareen in badan ba sujuudan dee malaha waxaan ku hayaan malaynayaa haddayna ka badnay 15 daqiiqo hawshii baa kulniya hawshaa yar baa wuxuu igu yidhi wallahi inuu kelmad kale igu dadkaa meeshooda jooga ma arkaysaa haa haddii 3 qaybood loo qaybiyo qayb ka mid ah hawshaasaa ku dhacday oo meeshaa soo gelisay waana halka keliya fafiruu ila allah ilaahay u cararaday waana soo ajiibtay ninkaas sheekha u tago waxaad ku tiradaa dhibaata ay haysatay niyadu halay duceey waa fikradiinkii waa khamiis jimca soo gelaya ninkii baan la hadlo sheekh sidaa iyo saa iyo saa iyo saas iyo saas waxa adoo u yar dul maray wuxuu yidhi walaalkeen oo dhibaataysan ayaabaa dhibaatada ku jira marka ilaahay inuu dhibaatada ka dul qaado alxamdulilah dhah waan iska soo socday waan iska sunnaystay halkii waan iska yar fadhiyo cabaar ilaa 9kii markay gaadhay waxaa noqday wallaahi sidin ka soo kacay hurdo min bilow maalintaa ninkii u tegey uu igu yidhi 100 ma kuu diraaday ilaa iyo maalinkii igu dambeysay ayaa saa ii soo hormaray shaqadaydii maxaygii hawshii intaasoo shaqaan usoo seegay wax walba yacni dadkii lacag uma haysid waa inaad been ku maaweelisaa dadkii yacni ilaahay wuxuu yidhi ina alkhamra yani khamaarka iyo turubka iyo khamrigu waa camalkii shaydaankee fajtanibuuh war ka dheeraaday muu odhan ilaahay xitaa ka taga muu odhanin ilaahay laakiin wuxuu yidhi fajtanibuuh ka dheeraada ninka waxaa galaana waa nin ilaahay la dagaalamaya bal nin ilaahay la dagaalamaya miyuu guulaysanaya ilaahay nin dagaal kula jira subxaana wa tacaala habeenkii baan ku wuri ilaahayow risiq walbaada haya mafaatiixda adiga haya meel qaldan baa wax ka raadiyey waan odogeed qalbigayga inaanan marnaba is odhanin wax ka hel laakiin wixii dadka u celi intaas oo dhan wax igu soo waday bahashaas wax ka heliga ma ahayn wixii dadka u celi ku celi dam ku celi dam ku celi dam wixii dadka inaan u celiyo guntiya gabagabadii godkaa madoween ka soo baxay ilaahay inuu qof kale ku rido ayaan ka baryaya dhallinyaraday la soo xidhiidhay xalay toole haddaan facebookayga idin tuso waxay qoraalii soo qoreen mid walba wuxuu ku odhanayaa qisadaa qisa la mida laakiin 16 kuwa yarayde 100,000 wallahi inaan bay idii sheegay 100,000 ha 130 ninka ii sheegay ka war eegu yidhi maanta Ethiopian iska tagoon hadiis baan iskaga qayilaa buu yidhi markaan musallafeenka ay xaafadayadina waxaan kula noqday ma jiro
waxoogaa baan haystaa intii baan bir u bedeshay biro halkaan ku dhinto haddaan doono markaa inuu ka baxo doonaya ayuu wadamadaa dee u baxo ayuu doonaya yani aad baashi bilaabisay ma ogeed in xaaraanta kow markii koowaad ma ogeyn wallaahi bay iga tahay maalin dambaan sheekh umal ayaan ka dhegaystay dee laakiin wixiiba ku baxay gooraan dhex galay dee laakiin alxamdulilah waxaan kow alxamdulilah idhahdaa $1 bahasha iga soo galay in xaafadayda iga gasho waa waxyaabahan alxamdulilah kun iyo kow jeer aan idhahdo waxa iga mid walaalka isoo diriyo mid ninka xildhibaan Faysal oo dadka ugu wanaagsan iyo Siciidka iyo maxay iyo Cabdi Yuusuf Aariyo dad iyo lacagta isiiyo mooyaane wallaahi inaan $1 xaafadayda geeyo waan iska ilaalin jiray dhalinyarada maanta bahashaasi maanta waddankeenu dhaqaale xumo ka cabanaya dhaqaale xumada mar horena waan u soo celiyay kelmadda dhaqaale xumo inagaga daran wan egasbad maanta ma jirto wan egasbad dhaqaale xumo inagaga daran ma jirto maanta waa dhibaatada inoogu weyn ee maanta ummaddeeni gumaatay 50,000 baa habeen baxaya waan isleeyahay anugu lacagta hargeysa ma habeenkii wan egasbad kaga baxdaa kama yara $200,000 habeenkii keliya kama yaraan kartaan isleeyahay anugu lianna waxaan garanayaa asxaabtii waxaan garanayaa dhalinyartii waxaan garanayaa qof kastoo Facebook ila soo wadaagay intay ka ugu yar baa koonaya 3,000 bay iga haysaa ashqiyaas ka ugu yar duqaankayga cuntay nimanka aan weliba aad u waaninayo saaxiibaday nimanka gawaadhida yaryar haysta wata waa nimanka u badanay bahasha inta raacay iga sheekay farabaan bay ku haysaa lianno magaaladiyo dhaqaalihii iska yaraaday iyo iyagii oo biil laga sugayo dhaweeye hadduu qaado muxuu waxba ma heli karaa maanta dhaweeye cidba ma dalbata maxaa la dalban quuta turuurigiiba watan doorasho iyo maxay iyo wax isa soo yar wada galgaleen qof walba wixii sira jeebku ku xareystay qof walba nin walba wuxuu doonayaa kororsiimo halkii laga heli karaa bahashan buu soo oranayaa qofkii laakiin kororsiimo inta doonayso cadaab baad galaysaa cadaab noloshaada cadaab kula dhacaysa inta qoys ku kala tagay inta qoys ku kala maqan inta nin ee itrixaaskaygii waxaan ku kala tagnay wan egasbad ciidaas iga badantay walaalada iyo cid walba waxaan ku waaninaya kii ayna qasnadiisu dhammaanayn ayaa jooga weligiina joogaya intayn bahasha meel qaldan ka raadin layn walaaladayow